waa application haddii aad dhex gasho ay adag tahay inaad si degdeg uga soo baxdo adoo ku jira saacado ayaad moodaysaa inaad ku jirtay dhowr daqiiqo taasina waxaa keenaysa inuu kuu soo bandhigo wax walba aad xiisaynayso sababtoo ah waxa uu og yahay wax walba aad xiisaynayso taasina waxa u fududaynaysa waxa uu la socdaa dhaqdhaqaaq walba ama xog kasta oo ku jirta moobilkaaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Cabdiqani Xange, halkanina waa Xange Show. intaanan guda gelin muuqaalka fadlan like saar, haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biro channelka subscribe saar. aaladda TikTok ama applicationka TikTok waa aalad caan ka ah dunida. dadka sida joogtada u isticmaalana waxa ay gaarayaan 1 bilyan oo qof, halka inta jeer applicationka la soo degsadayna ay tahay 2.6 bilyan oo jeer. waxa uuna noqday abka loogu degsiga badan yahay marka laga soo tago gameska, waana ab ay isticmaalaan dadku iyagoo og inuu xogtooda og yahay wax walba oo ka dhex socda moobilkoodana uu ogaan karo. waana mid kuu sheegaya inuu xogtaada kula wadaagayo, ogolaanshana kaa dalbanayo, sidaasna uu kula soconayo wax walba oo moobilkaaga gudihiisa ka socda. haddii aad diiddo ogolaanshahaasna ma isticmaali doonto applicationkan. abkan ayaa waxa iska leh shirkad lagu magacaabo ByteDance. shirkaddan ayaa waxa la aasaasay sanadkii 2012 waxaana aasaasay nin lagu magacaabo Jan Yemin oo ah software engineering. shirkaddan ayaa ah shirkad samaysa applicationada. sanadkii 2016 ayaa waxay soo saartay application loogu talagalay in muuqaalada gaagaaban lagu soo bandhigo, keliyana lagu daawan karo waddanka Shiinaha, magaciisuna yahay Douyin. sanad gudihiis ayuu applicationkani waxa uu ku helay 100 milyan oo isticmaalayaal. si maalinlaana wuxuu u heli jiray 1 bilyan oo views oo daawasho ah. sanadkii labaad ayaa waxa ay go'aan ku gaareen inay gaarsiiyaan wadamo kale, waxaana la gaarsiiyay wadamo kale, magaciisana waa laga bedelay oo waxa loo bedelay TikTok, halka dalka Shiinahana looga yaqaanay Douyin. laakiin kaligiis ma ahayn. marka la fiiriyo dunida, abkan kaliya laguma soo bandhigi jirin muuqaalada gaagaaban oo waxaa jiray abab kale oo ay ka mid yihiin abka Vine oo haystay shacbiyad badan, laakiin waxa uu noqday mid aysan ku dadaalin ama aysan hormarin malkiilayaashii lahaa abkan. hawada ayuuna ka baxay 2016. dadkii markaas caanka ka ahaa abka Vine waxay u soo guureen ab kale oo lagu magacaabi jiray Musical.ly oo isagana la aasaasay 2014. abkan Musical.ly ayaa waxa iibsatay shirkadda TikTok iyadoo ku iibsatay 1 bilyan oo dollar. kadib waxay isku dareen labadii ab waxayna ka dhigeen hal ab. haddana waxa loo yaqaanaa TikTok. meelaha ugu badan ee dakhliga ka soo galo shirkaddan TikTok waa xayisiinta iyo coinska. wadamada loogu isticmaalka badan yahay aaladda TikTok waxa ugu horeeya wadanka Mareykanka iyo Russia. waxaa jira wadamo badan oo laga mamnuucay abkan isticmaalkiisa maadaama uu yahay ab ogaanaya xog walba oo qofka ku jira moobilkiisa iyo meel walba uu ku sugan yahay. wadamada iska mamnuucay abkan waxaa ka mid ah wadanka Hindiya, Pakistan iyo wadamo kale. TikTok ayaa ah aalad laga sameyn karo lacag, laakiin waxa loo ogol yahay inay lacag ka sameeyaan wadamo kooban sida Mareykanka, UK, Faransa, Germany iyo wadamo kale, laakiin kuma jiro wadan ka mid ah qaaradda Afrika. ninka iska leh aaladda TikTok ayaa waxa lagu magacaabaa Jan Yemin. aaladan ayaa waxa la sameeyay sanadkii 2016. dadka haysta followerska ugu badan ee aaladdan TikTok ayaa waxa ka mid ah gabar lagu magacaabo Charli D'Amelio oo ah gabar haysata 120 milyan oo followers ama saaxiibo ah. qofka labaad ee aaladdan haysta followerska ugu badan waa Khaby Lame oo ah wiil ku nool waddanka Talyaaniga kuna soo bandhiga hal abuur cajiib leh aaladda TikTok.